السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا دمان بحوينتا dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran Anaqaad Academy. maanta waa maalin weyn, waa maalintii Carafa ee qiimaha badnayd. Waxaan rajaynayaa inaad sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysataan cibaadada, soonka, salaada iyo alla bariga intaba. saa u jeedaan waxaan dul taaganahay beer ka mida beeriska aan ugu jecelnahay inaan ka trade garayno ee lacagaha forex trading. waxaan isha ku haynay telegramkana saa u jeedaan aan soo dhigay euro USD marka waxaan ka rabnay directional biaskeeda guud waxaan tilmaamaynay inuu ahaa uptrend, inuu ahaa uptrend. Okay, sidoo kale telegramka waa soo dhigay teamkeena. markaad u degto lower time frameka oo ah 15 minute waxaa laynoo jabsaday counter trend break baa inoo dhacay. Counter trend break ayaa inoo dhacay oo counter trendigeeni waa laynoo jabiyey. Counter trendki haddii laynoo jabiyey ardayda waa la wadaagaya bid by bid annagoo isha ku haynayna hadba sida ay fursadda noo siiso lacagtan. 15 minute marka aan joogno saan soo sheegnay higher time frameka oo anigu inta badan directional biaskeyga aan ku qiyaasto 2 hourka, lacagtana waxay ii tilmaamaysaa inay tahay uptrend. haddii aan u degno 15 minute oo ah lacagta marka aynu counter trend break iyo zonekeena iyo sida lagu jabiyo waxaas oo dhan aan ka eegayno 15 minute waxa inoo ka muuqda marka waa scenario 1 marka aanu diyaarinayno in counter trend break uu inoo dhacay baa ka muuqda. Counter trend break inuu inoo dhacay baa ka muuqda oo counter trendgii laynoo jabiyey. Counter trendka marka laynoo jabiyo lacagtan waxaa ka sugaynay in laynoo ku soo laabto zonekaas cusub, in laynoo ku soo laabto oo aan interiga ka qaadano. macnaha waxaa rabaa casharka meeshaan ku jira inaan idin tuso ayaan rabay. interiga halkaas inay lacagtu ku soo laabato ayaan rabay oo aan lacagta halkan ka baygareeyo. hase ahaatee kuma soo laaban oo suuqu nobody knows waxa uu samaynayo cidina ma garanayso. kuma soo laaban oo wuxuu u jirsaday biibis kooban. soonkayga si clear wuxuu u jirsaday 7 biib ayuu u jirsaday. 7 biib ayuu u jirsaday. Okay, 7 biib isagoo markuu u jirsaday ayuu ka laabtay. Okay, maxaan samaynayaa markaas oo kale? guud ahaan lacagtani markii uptrendkay noo ahayd waxay ka laabatay zone oo wanagii lahayn trading in the zone ka trade garay meel zone ah oo ha ka trade garaynin meel aan zone ahayn. lacagta zone bay timi, counter trend break baa ku dhacay. waxa sugaysay 3 daqiiqo manipulation moveska inay ku dhamaystirmaan oo ah in lagu sameeyo mitigation moveki lagu sameeyo oo dhaqaaqii madfaca ahaa lagu tago liquidity-gaagan oo halkaaga samaysmay lagu jabiyo kadib counter trend break uu ku dhaco. liquidity-ga haddii aadan arkayn halkaasay ka muuqataa waa clear liquidity isla eg taas weeye. liquidity on low weeye marka. Okay, liquidity-ga marka lay jabiyey waxaan rabay in counter trendkana lay jabiyo ama dhaqaaqa liquidity-ga jabiyey in lay jabiyo ayaan rabay. Okay, waa lay jabiyey isagiina waa ay yimi oo aniga calaamadii aan ku muujisan jirnay halkaan noo dhigay. isagiina markuu yimi maxaan rabay in laygu laabto intrigayga oo ahaa candleka institutional candleka oo dhaqaaqan awoodda badan leh ee jihadii suuqa kala wareejiyey in la yimaadaan rabay si aan halkaan uga furo intrigaygana halkaan ka furnaan rabnaa innaga. lacagta meeshaan fursadda ka gaadaynay halkaasay ahayd. Semberiina lacagtu mar walbaba way u dhaqaaqaysaa jihada aan u dirno, laakiin muhiimaddu waxa weeye shuruuc iyo qawaaniin law and order, shuruuc iyo qawaaniin ku hagaysa ayaa istiraatiijiyadani inta badan ay ku suntan tahay. Waayo qaanuunkeena mid ka mid aan laynoo fulin oo intrigeeni laguma soo laaban, lacagtii way iska dhaqaaqday. waxay samaysatay 15 minute higher high maadaama markaan tagno 2 hourka oo ah directional biaskeena guud lacagtu already waxay u dhaxaysaa
higher lowga iyo higher highga dhexdooda weeye waxaan ka qaraabanayna inaga mar walba marka aan rabno suuq bay ah oo uptrend inaan fursad bay ka raadino fursadda bayga waxaan ka dhisaynaa higher lowga iyo higher highga u dambeeyay ayaan ka dhisaynaa inta inaad ila faateen baan malaynaya okay marka higher highgan gudaha ku jira iyo higher lowgan gudaha ku jira maxay yihiin macallin bay soo kartaa soo ma waxay yihiin 15 minute higher high iyo higher low way kii guud oo hadda idin tusayo wuxuu ahaa 2 hour marka joogno directional bias kan hadda kan inoo bilowday oo higher low halkan laftigeeda higher low way halkanina waa higher high hadda laftigeeda waxa moodaa high kale inuu samaynayo way lacagtani waxay samaysatay 15 minute uptrend cusub ayay samaysatay video baan ka soo duubay waa soo publish gareeyay waliba ardayda mentorshipka ka faa'iideysata si fiican ayay u garanaysaa way lacagtani already kuma laaban intrigeygii laakiin waxa bilowday 15 minute uptrend cusub ayay bilowday 15 minute uptrendkayga cusub marka ayaan la jaan qaadaya هو سيناريو 2 تريد كان محنو uu ka bedelay scenario 1 baa rabnay fursadda inaan ka dhisno oo leenagu soo laabto intrigegan laakiin markii lagu soo laaban waayo oo 2 daqiiq la samaystay 2 daqiiq oo higher low higher high markii la samaysmay trade kaygii scenario 1 aha wuxuu ka bedelay scenario 2 fursadda marka halka aan ka raadin doonaa waxay noqon doontaa fursad scenario 2 ah ayay noqon doontaa fursad scenario 2 ah ayay noqon doontaa scenario 2 fursad scenario 2 ah ayay noqon doontaa marka fursadda aan ka dhisayna way lacagta waxay samaystay higher high higher low higher high maxaan samaynayaa marka saan kuu sheegay golden zone ayaan ka trade garaynaa golden zone ayaan ka trade garaynaa fibkayga ayaan waxaan saaranayaa daqaaqa u dambeeyay oo anigu higher highgan iyo higher lowgan dhexdiisa ayaan fursadda ka gaadayaa higher highga iyo higher lowgan dhexdooda ayaan fursadda ka gaadayaa sidaa darteed waxaan fibkayga saaran doonaa higher lowga u dambeeya iyo higher highga u dambeeya ayaan fibkayga isla saaran doonaa waxaan calaamadsan doonaa golden zonekayga ayaan calaamadsan doonaa golden zonekayga ayaan calaamadsan doonaa golden zonekaygani zone muhiim u noqon doonaa oo hadhow markay lacagtu soo noqoto aan fursadda ka raadsan doono waxyaalaha aynu dadka dheernahay horena waa idinku sheegay waxaa ka mid ah golden zone oo saa u jeedid lacagtani markay soo noqotay golden zone bay ka noqotay meeshan ay ka noqotay waa golden zone 0.75 weeye inta badanna traderska iyo trade ID aan idin soo diro waxaad aragtaan inay ixtiraamto lacagtu mar walba golden zone-keena fibkeena sida sittingka fibka loo saxdo video muuqaalaan ka duubay waa soo dhigay waa daawan kartaa waa ka faa'iideysan kartaan golden zone waa sir muhiim ah oo dadka dheernahay way lacagtayda marka aniga boostejada aan u fadhiisan doonaa waa taas zonka aan u fadhiisan doonaa waa kaas dhimaan zonka aan u fadhiisan doonaa lacagta hadhow ka raaci doonaa waa golden zonekaas hadalkayga si fiican faham way waa halkaas wey way halka laftigeeda zone baa ku jira sooma okay aan fiiriyo marka zonkan in lacag soo gaadho kale markaan 15 minute qiyaaso way soo gaadhay okay laakiin waa meel u dhow marka targetkeena ugu weyn horta waa higher highga inaa ogaataan isku daya targetkeena ugu muhiimsani waa higher highga weeye higher highga haddii laga kormaro micnaheedu waxa weeye halkanna 15 minute higher high cusub baa inoo samaysmay halkan waa kasoo guuraynaayo meelahan aynu iman doonaa waana arki doontaan waa haddii haddeer hal kandhal 2 kandhal oo isku dhex jira baa ka horeeya higher highga waxaan rabaa hal kandhal oo clear inuu ka hormaro kandhalka hadda xirmaya aad u jeedaan lacagtan euro USD hadduu igu xirmo isagoo bullishkiisaasa
higher high cusub baa ii samaysmay sidaa darteed in la jabiyo lowgaygaan ma rabo haddii la jabiyo micnaheedu waxay la mid tahay trendigi inuu kala wareegay sidaa darteed fursad sell ah oo scenario 4 noqon doonta oo aan casharo kasoo duubi doonno oo kasoo horjeeda trendiga guud ayaynu meelahan ka diyaarsan doonaa haddii halkan laynoo jabiyana kaba si fiicanoo jihadeenni suuqa laynoo ixtiraamayo fursada bay ah ayaan sii raadsan doonaa waayo halka marka lacagta aniga aan ka sugayey mar walba waa 0.75 ka golden zoneka ah maadaama lagu noqon waayey interigayga asalka ahaa waayo waa la iman waayey sida muuqata lacagti maxay sii samaysmatay higher low halka u samaysatay higher low bay halka u samaysatay mar walba sida loo dhaqmo ayaad adiguna suuqa ula dhaqmaysaa suuqa ma xukuntid halkaa aad ma oran kartid laakiin shuruuc iyo qawaaniin ayaa ku hagta marka shuruucda ay qawaaniintaasi ay kuu soo muuqdaan baa tradeka qaadanaysaa hadda tradekan wax walba oo aynu soo dhiganay waa ka helnay trendigu waa inala jiray oo sujaado uptrend bay ahayd counter trend break waa dhacay saddexdii dhaqaaq manipulationka liquidity waa heshay zone waa heshay maxaa kaa dhinaa waxa kaa dhinaa saddexdii dhaqaaqa manipulationka dhaqaaq waa heshay liquiditygaaga waa lagu jabiyey dhaqaaqii kale waa heshay counter trend breakgaaga waa ku dhacay dhaqaaqii kale inuu kugu laabto ayaad weyday zonekaaga wuu kugu laaban waayey tradeeka ma qaadanaysid already sharci baa kaa dhiman كلما تريد كوباي وادي وأجد أن انتهى دقائق تريد انتهى دقائق سديتني شنبي بيقول إيه دقائق يورو يسدي سماها شروع ذا إن هالقضب بقى إن كم مقنع بيضا وقادن لهين قضب كأن كم مقنع محوها أنت ضبضها بيبي اللوتش السدي أنت ضبضها بيبي اللوتش السدي أنت رجاجة أي كام غنيت أيا ها شرعي كم غن شروع دادو أن كو إيمان سيدا درتد بيدان وكهرنيش ما قادن waxba islihin marka intii kala dhan baa ku dhacayniyo hal qodob waxba ma ahane tradekiis iska qaado bay u qaado ina istiraahad lama rabo qodobadan aan casharada idinku sharaxay midba mid buu ilaalinayaa safe baa tahay boqolkiiba boqol baan oran karaa wallahi haddii shuruucdan say tahay aa u isticmaasho haddii laakiin aad wax la kala hadhid haddii aad wax khiyaamaysid haddii meel aan liquidity ahayn liquidity ku khasabtid haddii counter trendkaaga aadan muxuu ahaa trendigiisa aadan si saxa u dhisin haddii saddexda dhaqaaqa manipulationka aanay si dhammaystiran kugu iman tradekaa qaadan maalin walba trades baa suuqa ka dhaca maalin walba shuruucdaana suuqa ku dhaqaaqa haddii marka sharcigaaga wax ka dhiman yihiin ha trade garayni faraha ka qaad waa inaad ka hari kartaa waa inaad ficilka kale ee suuqu la yimi aad adiguna la timaadid hadda ficil baa la timi soo ma kaagi suuqu wuu la iman waayey mid kaluu la yimi oo wuxuu samaystay lower time frame uptrend soo ma lower time frame uptrendkaaga ku dhis aragtidaada oo maxaan ka sugaynay suuqa inuu ku soo laabto golden zonekeenna kuma soo laabane zonkan yare halka ku jira ayuu ka laabtay zonkan yare halka ku jira laftigeeda maxaan ugu dhisi weynay maxaan ugu dhisi weynay trade uga dhisi weynay day waxba aan tusayaa waa zone soma ilaa waa meel dhaqaaq awood badani oo opposite zonki ka soo horjeeda jabiyey uu ka dhacay saasaa zonku ku noqdaa zonku waa inuu dhaqaaq awood badan oo zon ka soo horjeeda jabiyey waa inuu jiray markaasaa zonku zone noqon karaa soo ma lacagtu zone bay ka noqotay soo ma okay aan fiirino mar hadday fursadda aan dhisaynaa ay tahay scenario 2 maxaan counter trendkayga ku eegayaa 5 minutes simply okay 5 minutes order flow iga soo horjeeda marka aan eego 5 minutes order flow iga soo horjeeda aan eego okay waxaan oo dhan maadaama ay ranjin ahayd intan oo dhan maadaama suuqu ranjin ku jiray aniga sayber waxaan sameeyaa intan oo dhan suuqu ranjin ku jiray baan dhahaa
calaamadaasaan dhigtaa inaan tusaan rabaa intan oo dhan suuqu macnaheedu waxa weeye wuxuu ku jiray baan dhahaa rangin buu ku jiray rangin waa garanaysaan soo maa waa consolidation suuqan jihana u socon suuqani hadda saas isugu daba iyo hor laabanaya ma ahane trendi ma haysto trendi up trend uma socdo down trend uma socdo waa consolidation okay sidaa darteed xagee ka soo bilaabmay trendigaygu halkan uu ka soo bilaabmay inuu suuqu soo lower low lower high lower low uu sameeyey soo maa zoonkaygii baa waxaa lagu yimi si waxaa lagu yimi waxaa lagu yimi trendi ah soo maa maxaan sugayaa in la jabiyo counter trendkayga waa la jabiyey counter trendka marka la jabiyo anigu badanaa maxaan sameeyaa counter halkan ka muuqdaa jabintu waa clear saan filayo weliba aan hubino on counter trendkeena lanoo jabiyey fullbury candle fiican baa ka hormaray waa la jabiyey marka counter trendkayga halkan ay ka dhacday marka jabintu calaamadii jabinta counter trendka aan ku muujisan jirnay aan meesha dhigano marka counter trend brigii dhaco ayaan aniga liquidity-ga raadiyaa trendkan liquidity ma ku jirta liquidity ma ku jirta liquidity ma ku jirtay yes liquidity qurux badan oo isleeg hoose ah baa halka iigu jirtay soo ma aragtaan waayo mitigationkii makuu dhacay 3 daqiiqo horta zonka soo hel intriga noqon doona zonka intriga noqon doona daqiiqaana ka qiyaasanaysaa daqiiqan jabiyey ayaa ka qiyaasanaysaa ama kan qaado kaarta qaado isku mid laakiin inaga candlekan institutional candleka ayaan qaadanaynaa waa zonka intriga inoo noqon doona waa zonka intriga inoo noqon doona waayo maxaa ku dhacay lacagtan marka maxaa ku dhacay scenario 2 بالفعل يدو دمايستيرن كوما دحين اوكي maxaa ka soo bilaabaysa analysis-kaaga number 1 maxaa ka soo bilaabaysa analysis-kaaga waxa ka soo bilaabaysa inaad raadisid scenario 1 inaad raadisid scenario 1 inaad raadiyo maxaa ka soo bilaabaya waxaan ka soo bilaabaya marka hore waxaan fiirinayaa 2 hour-kayga 2 saacadood time frame-kayga ayaan waxaan fiirinayaa jihada suuqa u socdo bias-kayga guud suuqani ma down trend baa mise waa up trend okay maxaa ii muuqata marka suuqani inuu yahay up trend okay counter trend-ga maxaan ku eeganayaa waxaan ku eeganayaa 15 minute-ka saan sameynayna anaga shalay iyo daraad iyo fursad u raadinayna saasay fursad scenario 1 aan raadinayna fursad scenario 1 saan u raadiyo maxaan sameynayaa marka ya fursad scenario 1 maxaan raadinayaa waa inaan counter trend-ga soo helo lacagtu waa inay marka hore soo laabato nasasho samayso nasashada waa in la jabiyo ama counter trend break waa in la sameeyo waayo counter trend-gi waa la jabiyey liquidity waa la sameysmay zone bay lacagtu ii timi 3 daqiiqo manipulation-ka mid baan waa helay liquidity waa la soo jabiyey waa helay daqiiqo liquidity-ga jabiyey waa la jabiyey kii laabanayay baan intrigayga igu noqon sidaa darteed trade inaan qaato trade-kan waa ka dhacay kullama uu dhaqaaqay waxba igama gelin aniga shuruucdeedii sharci baa iga maqan ma gelayo marka lacagta ficilka labaad ee la timaado baan eeganayaa scenario 2 baan fursad ka dhisan doonaa scenario 2 see fursad uga dhisan doonaa marka scenario 2 see fursad uga dhisan doonaa marka maxaan sameynayaa directional bias-kayga 15 minute baan ku eeganayaa sidii jihada suuqa markaan scenario 1 qaadanaynay aan 2 hour ugu eeganaynay hadda 15 minute baan ku eeganayaa okay directional bias-kayga sameynaysa maxay tahay higher low higher high higher low higher high higher low bay sameysay higher high halkan waa golden zone-keena waa meesha aan ka rajaynayna inaga fursadaha aan qaadano oo 99% win ah meelaha aan ka dhisno meesha inoogu beegmo weeye golden zone-ku meelaha inoogu beegmo weeye okay mid kale aan intuso marka dhaqaaqa halkan ka dhaqaaqay ee zone-kan ka soo horjeeda jabiyey waa dhaqaaq Soomaa isaga laftigiisu waa ku fiirsan kartaa fibkaaga xagee buu suuqa ka noqday golden zone-kii ma ka noqday meesha dhaqaaqan awoodda badan ee intriga dhaliyey
anigu ma qaadan trade kan unfortunately waa ka mashquulsanaa oo 77 biib dhaqaaqay meesha uu ka dhaqaaqay xagee bay ahayd golden zone kana ahayd soma marka aan idin leeyahay golden zone waa sir aan dadka dheernahay waa sidaas wey mar walba isticmaal trade-kaaga iyo fikradahaaga ku kororso scenario lacagta meeshaan ka filan weynay oo halka ka rajaynaynay innaga oo inuu discount fiican laynoo soo sameeyo baan rabnay oo lacagtu halkan ka laabato way ka laaban weyday xaggee ka laabatay golden zone kan kale ayay ka laabatay okay zone kan markaa calaamadsato golden zone kaaga markuu ku yimaado suuqu markaas adiga baraarugaysa inta aan la soo gaarin oo dhan waxa laga yaabaa inaad iska mashquulsanayd halkan alarmiga ku xiranaysa golden zone kaaga mar allaale marka lacagtu golden zone ka soo gaaro waa inaad adiga dib u fiirisid counter trend waxa la yiraahdo counter trend ka 5 minute baa la degaysa marka scenario tu qaadanaysid casharkan ka horeeyay oo aan soo geliyay ayaan ku sharaxay waxa ay tahay scenario tu iyo qaabka trade ka looga qaato bid by bid baan sharax counter trend kaaga fiiri marka counter trend ka maxaa leenahay intan oo dhan waa consolidation maxaa la dhahaa suuqan jihana u socon oo kor iyo hoos isugu daba laabanaya ayaa waxa la dhahaa consolidation maxaa la dhahaa consolidation intaas oo dhan marka maxaa la yaaniga waa consolidation waa waxaan oo kale suuq jiha u socdo ma aha innagana maxaan u baahannahay nooc min trend ayaan u baahannahay trendi hoos u socda oo counter trend in noqon kara ayaan u baahanahay fahmt wax trend in noqon kara ayaan u baahanahay waaye maxaan nidhi consolidation intan oo dhan waa consolidation trendiga xagee lacagtani ka soo bilowday waxay ka soo bilowday halkan lower low lower high lower low intana marka aniga waxay ii tahay counter trendkayga intana waxay ii tahay counter trendkayga aniga intana sorry waay xilliga aan aniga alarmkayga iyo attentionkayga aan soo jeedinayo waa xilliga counter trending aan la jibiyo xilliga counter trendkan la jibiyo wey counter trendkii ma la jibiyey marka counter trending ma la jibiyey lugtan ma la jibiyey yes ha waa la jibiyey marka la jibiyey maxaa aniga raadsanayaa liquidity-gayga clear liquidity ayaan haystaa on low zone ayaan haystaa oo golden zone igu beegan counter trend ayaan haystaa counter trend break ayaa ii dhacay horta liquidity-gaygii baa la jibiyey waa la mitigate gareeyey manipulation moveski saddexdii dhaqaaqa marin habaabinta shaahureerinta traderska ayaa ii dhacay ardada mentorshipka si fiican bay u garanayaan liquidity-gii baa la jibiyey dhaqaaqii liquidity-ga jabiyey ayaa la soo jabiyey si kale haddaan u dhigno counter trendki ayaa la soo jabiyey oo lug displacementia ayaa loogu soo jawaabay maxaa ii dhacay marka interigaygii ayaa la iigu laabtay interiga marka la iigu laabto maxaan samaynayaa marka sidaa sharcigu u dhammaystiran yahay oo aanay waxba kaa dhinnayn bal fiiri backtesting samay saasay lacagta u dhaqaaqaysaa sax xitaa news soo baxo bibiska zone-kaagan asalka ah xayir dabadiisa dhigo 10 bib ka badan ma qaadan kartid imise dhawaada lacagtani 78 hal lotal haddaa ku geli lahayd oo akoon yar challenge aad haysatid imisa ka qaban lahayd 700 akoon weyn haddaa haysatid oo $7 ku gashid $5 ku gashid imisa ka qaban lahayd marka saaxiibayaal xirfadani haddii aad sida saxda u barato laa shaka inaad guulaysanaysid laa shaka inaad suuqa ka adkaanaysid laa shaka in uu ku noqonayo suuqan inaad adigu hagaysid inaad adigu wadid counter trend sharcigii oo dhan ruleski oo dhan lacagtani ma waafaqda waxaan idin dhigayaa 10 aan idinku sharaxayay lacagtani ma u dhammaystiran yihiin mise ma dhammaystira ilaa hadda waa arkayseene zone baa leeyihiin waa zone meeshan 0.75ka oo golden zone-keena ah zainbury isaga laftigiisa zone meel zone caadi ah buu ku beegmaa meel cidlo halkan oo kale in baa la kuma beegmo
zone buu ku beegmaa zone-kana maxaa zone-nimada siiya waa inuu yahay dhaqaaq awood badan oo dhaqaaqii ka soo horjeeday jabiyey 0.75 baa isugu kay beegmay waa 99 above percentage win trade-kaygu hadday isugu kay beegmaan zone iyo golden zone trade-kuna uu ixtiraamo counter trade break-uu kuu dhaco manipulation moveska ay kuu dhacaan liquidity-gaagii laguu jabiyo jihada suuqa ee asalka aa la haysatid sinaariyaday doonto ha ahaato trade-kaagaasi waa guulaysanaya casharadan iyo waxaan aan hadda trade-kan ku qaatay iyaga oo duuban baan waqti badan ardayda iskula qaadanay casharaan ka duubay youtube-kan soo geliyey casharaan ka duubay telegramkay ku jiraan wax badan haddii aad forex ku wareersanaatid wax badan haddii aad ku dawaqdid waqti badan haddii ay kaa qaadatay haddii aad ka rajad dhigtay I believe istiraatiijiyadan oo aan u bixiyey istiraatiijiyadda ugu fiican forex trading waa rajada kuu abuuri doonta forexna kugu soo celin doonta real moneyna uga samayn doontid suuqyadan annaga maxaan nidhi focus ma saarno suuqyada rangingka ama consolidationka lacagta aan ka trade garayno ama tradeska ka qaadanaynaa waa inay tahay lacag down trade ama ay tahay lacag up trade wax kale isku mashquulin up trade waxaan u malaynayaa saaxiibayaal si fiican baa ii fahanteen meeshaan kasoo bilaabnay qodob kale oo muhiima ayaa jira waxaan rabaa ilaa ardaydu mid ula qabsato 4 scenario ayaan qaadanaa scenario 1 4 scenario ayaan qaadanaa oo ku trade garaynaa scenario 1 iyo scenario 2 iyo scenario 3 iyo scenario 4 afarta scenario ayaan trades ka dhisnaa oo fursad ka qaadanaa afarta scenario laba waa idin baray scenario 1 waa idin barayo waa lacagtii haddaan sharaxayay labadaba waxaan ku sharaxay euro USD lacagta fursadda halkaan ka sugayna soo ma inagama siin khasbi mayno suuqa hal rule oo ruleskeeni kamida baan weynay hal rule oo ruleskeeni kamida baan weynay maynaan gelin trade waxaan doonaynaa all sharci wax walba aan dhiganay bid by bid in looga helo trade-ka looga helo haddii laga waayo waqti iskagama dhuminayo sida kale oo suuqu ila dhaqmaan ula dhaqmaya hadda lacagtan scenario 1 markaan ka raadinaynay 15 minute content trainer noo samaysmay liquidity waa ka helay zone lacagta waa ka helay weliba golden zone bay joogtay counter trendkii ayaa wuxuu ii sameeyey liquidity-gayga in la jabiyo liquidity-gayga baa misna la soo jabiyey oo order flow-gii ama momentum-kii suuqa waa la kala wareejiyey dhaqaaqan laabtay baa waxaan sugaya 3 dhaqaaq ee manipulation-ka inuu ii dhamaystirmo oo intarigayga laygu laabto laygulama laaban waa dhaqaaqa keliya 7 biib u jirsaday intarigayga ayaan uga joogsaday inaan fursadda qaato maxaa igu kalifaya waxba sababta shuruucdaydu ima dhamaystira hadda waqti yar kadib buu ii samayn karaa suuqu fursad shuruucdayda ii waafaqday soo ma haddii aan marka sugi lahayn haddii aan hadda trade-kan anu ma qaadan haddaan hortiina ku sharaxay wixii aan weliba uu socdaa still news ha wado wax walba ha wadeen istiraatiijiyadda waa khasab haddii shuruucdeedu u dhammaystiran tahay ya in xitaa newsku jihada suuqa aan la iskala soo aado scenario 1 halkan waa ka waay waa ka dhacay fursadda ma gelin scenario 2 baan raadsay scenario 2 maxay ahayd maxaan idinku yidhi scenario 2 keligeed ma abuuri kartid scenario 2 waxa dhasha scenario 1 scenario 2 waxa dhasha scenario 1 marka hore waa inay jirtay scenario 1 trade ah oo la waayay ama shuruucdii buuxin waayay ama trade kan oo aad soo qaadatay oo aad ku jirtid oo fursado kale kuu sii dhaliyo oo kuu sii abuura 15 minute higher low intaasun haddii fursad scenario 1 ah aanay ka horreynin scenario 2 da aad dhisaysid ma aha wax shaqaynaya
ma aha he wax shaqaynaya waxaan ku yidhi scenario 2 ma jiri karto scenario 1 la'aanteed marka hore waa inaad soo dhistaa scenario 1 scenario 1 baa la waayay scenario 2 baa imanaysa marka waa labada scenario ee ilaa hadda aan idin baray waqti badanna aan idinku celceliyey si fiicanna aan idinku sharaxay wax walba aan isticmaalnona waa idin sharaxay qodob cilmiyeed walba oo aynu tradekeena iyo fursadeena ku dhisno waa idin sharaxay saaxiibayaal scenario 3 iyo scenario 4 baa inoo soo hartay marka aynu sida biyaha aynu aad u cabtaan scenario 1 iyo scenario 2 ayaan iyagana idin sharxi doonaa scenario 2 siday ku timi marka maxaa ay samaysmay 15 minute higher low higher high okay waxaan idin suuq wuxuu ii samaynayaa waxaan ka raadsanayaa fursad scenario 2 fursad scenario 2 ayaan ka raadsanayaa directional baskeygu 15 minute buu noqonayaa counter trendkayga waxaan ku eeganayaa 5 minute baan u degnay zone waa soo helay golden zone buu igu beegmaan liquidity-gayga waa helay liquidity-gayga waa la mitigate gariyey sidoo kale dhaqaaqa liquidity-ga jabiyey waa la soo jabiyey si kale haddaan u dhahno counter trend break ayaa lay sameeyey intergayga lagu soo labtay suuqii waan galay xitaa hal biib oo drawdown ma la sameeyey ilaah mid ku dhaarshay hal biib oo drawdown ma laygu sameeyey mise layguma samayn that's how oo ay istiraatiijiyadani powerful u tahay oo aan ugu bixiyey istiraatiijiyadda ugu fiican ugu risk managementiga wanaagsan ugu powerfulsan suuqan ee ninka dhalinyarada ee Soomaaliga iyo qof ciduu doonaba ha noqdee oo suuqan guul uga gaari karo unan uga rajo dhigayn rajadiisa soo noolaynaysa waa mahadsantii saaxiibayaal wax badan waa isla jaan qaadi doonaa insha Allah taala soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh